2020 waa sanad u baahan damac sare, go'aan wax soo saar ka duwan kii hore iyo adkaysi lagu qaabilo. haddaba videogan waxaan kugula wadaagi doonaa 5 shay oo noloshaada horumarkeeda qayb weyn ka qaadan doona. qodobkayga koobaad wuxuu yahay shay aad iyo aad qaali u ah oo qofka ku sifaysani uu ka mid yahay dadka darajaadka sare noloshan adduunyada ka jooga. qofka helaana uu yahay qof aad u nasiib badan. sifada aan tilmaamaya waa shayga la yiraahdo fahanka. fahanku waa ka xeel dheer yahay aqoonta. waxaa jira dad aad u fara badan oo ku yaqaana, laakiin inta ku fahantaa aad bay u yar yihiin. qodobkayga labaadna wuxuu yahay run ahaantii aad iyo aad baan u jeclahay middan. waa marka koobaade adduunyadu ma dhib la'a. caqabadaha kugu imaanaya waad kufaysaa oo waad dhacaysaa oo noloshu afkay kaa haraatinaysaa, kuuma kaadinayso, kuuma joojinayso. ciil fara badan baad maraysaa, xoolo la'aan baad noqon, waxaad noqonaysaa cilmi la'aan. waxaad u arkaysaa naftaadu inay dadka kaloo dhan ay ka fiican yihiin, adiguna kan dadka ugu liitayna tahay. shaki ma lahan caqabadahaasoo dhan oo dareenkaaga ciriirka gelinaya, oo jeebkaaga ciriirka gelinaya, oo muuqaalkaaga ciriirka gelinaya, waxay u imaanayaan in ay kaa dhaqaajiyaan booska aad taagan tahay. caqabaduhu sidoodaba waxay u yimaadaan qofka inay isbeddel ku sameeyaan, inay dhaqaajiyaan. hadday faqri ku hayo maxaad samayn? haddii cudur kugu dhaco maxaad samayn? haddii dhibaato kaloo adduunya ku soo wajahdo maxaad samayn? waad dhaqaaqi, meesha aad fadhidi waad ka kici. sidaa darteed adaa xor u ah sida caqabadaha aad u arkaysid. waana laba mid uun. sida jaranjaro darajada labaad ku gaarsiinaysa ayaad u arki doontaa, ama waxay kugu noqonayaan badeelkii aad himmadaada iyo rajadaada ku aasi lahayd. qodobkayga saddexaadna wuxuu yahay noqo qof ka duwan dadka kale, marnana ha isla weynaan. waxbixinta iyo naxariistuna astaamaha kuu noqdeen, maxaa yeelay waxay furayaal u yihiin albaabada barwaaqada noloshu ay ka soo burqato. qodobkayga afaraad wuxuu yahay mudanna in aad ku qaabishid oo dhaqan gelisid sanadkan 2020. waa cabashada jooji. cabashadu waxaan nacayb ahayn ma keento. waxaana dhici karta sanadkii hore ee kaa tegey inuu la tegay saaxiibo fara badanood lahayd. dadkuna ma jeclo qofku marka uu go'aankiisu jilicsan yahay, cabashadiisu fara badan tahay, adkaysigiisuna yar yahay. qodobkayga shanaad ee 2020 ahna midka ugu dambeeya waa waxaad beerataad gurataa. ha ka mid noqon kuwa ku dhintay 20 sano laakiin jirkooda aan laga aasin adduunyadan ilaa ay ka gaaraan 60 sano, oo micnaheedu uu yahay u noolow ujeeddo. maxaad adduunyadan u joogtaa? waad cuntaa, waad cabtaa, waad guursataa, waad dhashaa, waad seexataa, waad soo kacdaa, waad ciyaartaa, waad faraxdaa, waad murugootaa. xayawaanku intaba waa kula maraa marka guurka laga reebo. waa uu farxaa oo waa dhargaa oo waxbuu dhalaa oo waa seexdaa oo waa soo kacaa oo waa ciyaaraa. maxaad kaga gedisan tahay noolaha adduunyadan balaayiinta ee dul jooga? maxaad kaga duwan tahay ragga facaa ah? maxaad kaga duwan tahay dumarka facaayo adiga kula mida? maxaad kaga duwan tahay? aaway ra'yigaagu muxuu kuula yaryahay? muxuusan wax weyn kuula muuqanin? maxaadan u fakerin oo maskaxdaada uga shaqaysiinin? ma waxaad sugaysaa adduunyadan inta mawdku kaa dulqaado oo ay noqoto oo keliya gabar heblaayo la yidhaahdo ayaa inta deganaan jirtay oo magacaa leh oo qabiilkaa ka dhalatay? ma waxaad sugaysaa inta la yidhaahdo wiil hebel la yidhaahdo ayaa adduunka joogi jiray oo qabiilka noocaasa ka dhashay wuuna dhintay? wax raad ah iyo micnana adduunkiinaada kaga tegin. sow ma ogid guud ahaan bini aadamku waxay ku kala gedisan yihiin ma aha waxay dhaleen iyo waxay tabceen, laakiin waa fikirkooda iyo maskaxda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ee ballaaran, sida ay uga dhaliyaan fikradahooda bannaankan intay u soo dhigaan ay dadka ula wadaagaan, si nolosha bini aadamka ku wareegsan ee dayacan ay wax uga beddelaan. su'aalaha aan ku weydiinayo jawaabahoodana aan adiga kaaga tegayaa waxay yihiin: maxaad ugu tala gashay oo qorshe ku ah sanadkan 2020 in uu kaga socnaado kagana duwanaado sannadihii ku soo dhaafay? ma qorshayaashii hore ee duugga ahaa ee fashilmay ayaad inta u soo rartay, mase kuwo cusub
oo aad ugu tala gashay sanadkan inaad bacda ka jirtid ayaa buugga kugu qoran.